waxa la yaab kale waxa weeye baarlaman golo wakiilada oo fadhiistay maanta oo go'aan gaadhay shir u yeedhnaa oo gudoomiyihiisa joogay oo tiradii ansixintu joogtay oo ajende la qaybiyay oo ajendaha in maanta la galay in kale loo codeeyay dabeedna gudiye la ogolaaday oo la baaskareeyay ayaa maanta kala dhacday berrito kalena maxkamadda ayaa isla galabnimadii ama habeennimadii warqad keenaysa ay ku hakinayso ilaa intay gartaa gelayso inaan go'aamada la fulin ama aan lagu dhaqmin waxay ahayd labada nin ee sheeganaya gudoomiyaha iyo ku-xigeenku halka ay sartu ka quruntay waxa weeye in xabsada gudoomiyaha baarlamaanka speaker buu ahaa cid lama lahayn isaga lahaa waxa yimid qaybe oo gudoomiyaha golaha wakiilada ahaa isaga lahaa oo speaker ahaa markuu maqayibo Cabdulqaadir soo fadhiisan jiray sartu waxay ka quruntay xisbi kulmiye la yiraahdo markii mucaaridka wax la yiraahdo shirgudoon oo aan dastuuri ahayn laakiin tii xeer hoosaadka golaha wakiilada ku jira oo dabeedna oranaya markastuu gudoomiyuhu hadlaba waan kula leenahay kulali lama laha maxkamaddu haday garnaqayso maxkamadda sare ha ka garnaqdo shirgudoonka aan ku jirin dastuurka qaranka ee lagu daray xeer hoosaadka golaha wakiilada haddaanu dastuurka xeer hoosaadku farac ku lahayn oo nu gelayn ma noqon karo marka gudoomiyaha golaha wakiiladu waa speakerka aqalka xilku isagu saarayay markuu maqan yahay buu ka labaad qabanaya markuu maqan yahay buu ka saddexaad qabanaya laakiin sheekadu ma noqonayso kulalihii waana laga baxay dhaqankii Soomaaliland ee ahaa wada hadalka iyo ergeynta maxaa keenay go'aan maanta la gaadhay berritana maxkamadii go'aan ka gaadho ma inaga soo noolaan lahaynba sidana ku sii noolaan mayno aynu ku noqono ergadii iyo wada hadalkii iyo tanaasulkii iyo wax isu sheegii iyo isu dulqaadadka aynu ku noqono hay'ad walbana waxay loo tahay inagoo fulintii iyo golihii wasiirada iyo madaxweynihii sariyanaynay haddaynu haddana maantana bilowno inaynu garsoorka gacanta u qaadno dabeedna jiritaankeennu halis buu gelayaa garsoorka waxaynu ku leenahay wixii aynu tala siin karayno ayuun baynu ku leenahay aflagaadana kuma lihin hawlahooda la fargeliyana kuma lihin gudoomiyaha maxkamadda sare waxaanu u tilmaamaynaa inuu xeer hoosaadka golaha wakiilada eego inuu eego dastuurka wax aliyaale wixii xeer hoosaadka ku jira ee aan dastuurka la jaan qaadayn in laga saaro oo ay kow ka tahay dabinkii yaraaya daahir riyaalo loo dhigay ee ahaa in shirgudoon wax la yiraahdo la sameeyo si looga takhaluso shirgudoonkaasi sal iyo raad kuma laha dastuurka mana soo gali kara xeer hoosaadka intaas uma kula talin